Fahad Yaasiin maxaan ka naqaanaa gaar ahaan adigu maxaad ka taqaanaa Fahad Yaasiin wala siyaasi ahba nin yaraan barta aniga oo 89kii dabayaqadii dhalinyaraha ahaa dadkeenan waxaan iska ahayn activistiyaasha oo diinta barta oo culimada oo xarakaadka islaamiga ku jiro oo nin dhalinyaraha asagana markaasaan bartay sinisdeen waan aqaanay inaan shaakeysan waqti dheer aan aqaanaa dheer waan inaan aqaano dhalinyaro waxaan ka shaqeeyaa xarakaadka islaamiga in badan ku soo jiray kabacdi media u wareegay dadka siyaasiyiinta oo dhan la shaqeysta siyaasadda 24 hours waqtigiisa u gooyay waga xarakaadka muxuu ahaa dadkan diinta iyo ku taxalluqa mise askar u ahaa dagaalama ciidan kamid ah maya ururkaas oo ka tirsanaa dabcan itixaadkan oo dagaalami jireen baday marka dagaalada qaar inuu galay waa laga yaabaa qaasta kuwa looq iyo gada ka dhacay laakiin sidiisaba nin siyaasadda u tafaruqa xiriir dawlad qadar lale u shaqeeya telefishinkeeda markii dambena markas daraasaad aljazeera la yiraahdo u wareegay aad siyaasadda committed uga ah waqti badan geliya isku daya inuu siyaasadda saaxiibaha ku samaysto madaxweynayaal ku dhisto dhaqaale dibadaha uga raadiyo waqtigiisa juhdigiisa intiisa badan siyaasadda iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo ay ku jirto isku daya waxaanay dhahaan gaalada king maker inuu ahaado nin noocaas waaye maadaama al-itixaad ahaa dagaal inuu ka qayb galay oo qori qaaday bal xaqiijin karaa walaaniga ma ogi laakiin sidii dad ii sheegeen asxaabtiisa oo dagaaladaas ka qayb galaa saas laakiin aniga de ninkii goob taagnay ma ihi laakiin nin nashaad badan oo wax isku xir badan oo abaabul badan oo dhaqaale dibadaha u raadsada oo siyaasadda inuu asaga wax samaysto mar waxaa laga dhigay wasiir wuu diiday dowladdii xasan sheekh nin ogol asaga inuu rabo inuu asaga wuxuu sameeyo qayb ka yahay ay joogaan jecel waaye dadaalkaas runtii waa ku ammaanan yahay oo waana ku fiican yahay waqti badan iyo time badan inuu geliyo oo nin commitmentiga aniga waa jeclahay dadka commitmentiga leh oo inay rabaan waxa ay sameynayaan ay ku gaaraan aragtida leh mowqifka leh oo aan siyaasadda ahayn maanta haddaan helana waa qaadanaa beri waa helaa masaalix yararkaa siyaasadda aan ugu jirin dhinacaas waa iga cajab geliyaa laakiin aragti weys marka wixii hela marka aragti siyaasadeed oo weyn oo dalkan lagu maaray karuusan lahayn marka wuxuu jecel yahay inuu xoog ku marsiyo aragtidiisa cariiriga ah inuu meel ku cariiriyo ana I think waxay asaga isu qabteen xas sheekh xagee ka keenay kula tamarka fikradda noocaas inuu soo dhaqmo fikirkaas waxaan u maleynaa salafiga sida u samaysan itixaadka ah in dadka la maqooniyo markaas wuxuu ku dhisan yahay walaa wal baraa wax la yiraahdo ama ina ay raacdo oo walaa ay siiso ama ina bari iga noqoto oo cadawgiga noqoto ama inaad walaa ii hayso hatta haddaan cadawgiga la jirin cadawgiga ka mid tahay I think teamka xashiq waa jirinka xashiq wax ka dhisto ahaa waxay xashiq isku diideen waxaan u maleynaa inay fikirkaas cariiriga ah oo meel la marsiinaa ay tahay marka farmaajo helada ay fikirkii cariiriga isla meel mali karaan oo asagana militarism iyo awood in wax lagu qabsado iyo koofi casnimo backgroundkeeda marka laba fikir oo meeshaas aroostaa ay muuqatay Cabdiraxmaan waxa sheegtay inuu yahay nin siyaasi ah oo fikir siyaasi gada oo dadka siyaasiyiinta soo jiita oo wax badan ka shaqeeya siyaasadda maxaa ku qasbay marka inuu taliye ciidan noqdo oo awoodda militariga iyo maxalliga sirdoonka u aado hadduu yahay nin siyaasi ah wuxuu dooray kula taal laga yaabaa inuu isir awooddaas meeshaas awood badan oo dadka ma ogtahay fiirka carabaha ku ta'athura mukhaabaraadka marka carabaha joogto waa xoog badan yahay intelligence-ga dawladda waa mishiinka ugu xoog badan markii laga tago qofka xogka haysta marka qaarkoodna waa equalba marka maadaama uu thaqaafa carabeed iyo culture caraba uu leeyahay oo ka yimid backgroundkaas inuu mukhaabaraadka yahay jihaas ay dhahan ama mukhaabaraad qaarkood meel awood taalla inay tahay I think halkaas ku saamoobay saas dadka kaligiisna ma dadka carabta wax ku barto dhanaa noocaas waa jecel yihiin dawlad mukhaabaraatiya wax la yiraahdo laakiin dadkan westernka jooga ama westernka yimid dad dimuqraasiyada iyo freedomka aad oo macna ugu sameeyso mar haddii qofku mukhaabaraad ka shaqeynayo waa qof maanta oo maskaxdiisa ay ku jirto waxa la qaarijiyo waxa la xanibo waxa la dilo waxa la dhibaateeyo mukhaabaraad siyaasad ma aha marka maxaa baduu yahay siyaasi mukhaabaraadku waa fiican yahay hadda interest state-ka u shaqeynayso oo maslaxadda qaranka ugu shaqeynayso oo moogtahay inaad qarankan wax halis ku xogteeda keento ka badbaadiso ka hortagto
mukhaabaraadka Soomaaliya say u fahamsan yihiin waa qalad waxay u fahamsan yihiin tiftifnimo iyo qof la qaarijiyo iyo qof luuq lala galay iyo qof la dilay iyo qof laga takhaluso waxaana keenayo hanaanka oo hadda waa aragtay hadda MI5 iyo MI6 dadka noqda Oxbridge kaliya laga qaataa oo Oxford iyo Cambridge dadka ka soo baxa kaliya loo qaataa intelligent intellectual extremely aqoon fiican leh inay yihiin qasab ah because intelligence yaa lagu leeyahay qof caadifi ma noqon karo marka Soomaali qof dadkaasna marka national security dadka lagu aamino waa amniga qaranka ama amniga qowmiga dadka lagu aamino waa amniga qowmiga marka wax badan ku jiro siyaasadda ku jiro dhaqaaliga ku jiro waxa ku jiro cuntadiya ku jirto halista imaa karta oo bini aadanka ku imaa karta ama haday tahay duufaano ama dhibaatooyin assessmentiga qofka marka inuu amniga qaranka ilaaliyo oo halista qaranka ilaaliyo oo nafur u sameeyo ama sacrifice u sameeyo qaranka badbaadadiisa waa loo baahan yahay laakiin de maadaama dawlad booliisiyadan waxa la yiraahdo dawladan oo ciidan ku dhisan oo xoog iyo maqooninta ku dhisan oo mukhaabaraadkooda wuxuu u shaqeeyaa dadka ay ka shaqeysa kaliya oo maanta dhan qofka muwaadinka daba taagan tahay asaga daba socoto marka laakiin dawladahan waaweyn ee hormaray amniga uu yahay wax oo noocan u sharaxayna threat-ka uu imaanayo dawladda dibadda iyo haddii jiraan internal threat oo dibadda ka yimid oo dibadda ka socday waxyaalahaas ka fiiriya laakiin dad anaga mukhaabaraadka aan koobiyeynayno waa kii de 22 rejiimkii ragga u waaweyn oo magacyada leh noocaas bay ku shaqeey jireen iyo wax la mid ah marka tiin baa la koobiyeynaya haddii sida aad sheegtay oo ninkan Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda uu yahay nin siyaasi ah oo rabo dalkan iyo dadkan inuu hogaamiyo oo xukun rabo muxuu isku qariyaa waa noocaas oo ka imaanaysa mukhaabaraadnimada iyo noocan xarakiga